wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno ay weheliyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda iyo sidoo kale madaxda kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga hadleen doorka wasaaradda waxbarashada ay ka qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadkii khasaaruhu ka soo gaadhay suuqa Waaheen iyo sidoo kale in laga jawaabo baaqiga abaaraha heer qaran iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku aadanaa sidii waxbarashada ay door muhiim ah uga qaadan lahayd gurmadka loo fidinayo suuqa Waaheen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno shirkaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay doorka waxbarashada iyo nidaamka ay u qaybiyeen hanaanka qaadhanka loo soo ururinayo waxa xarunta wasaaradda waxbarashada kulan ku yeeshay madaxda sare ee wasaaradda iyo agaasimo waaxyada iyo tacliinta sare guddiga tacliinta sare gaar ahaan agaasimaha guud iyo xubno kamid ah commissionerska waa tii xalayto shir lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland ee afurka loo sameeyay guddiga qaran iyo guddiga ganacsatada iyo ganacsadii qaadhaanka laga doonayay oo uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka uu joogay iyo xubno ka tirsan golaha wasiiradu waxa go'aamadii ay soo jeediyeen guddigu waxa kamid ahaa in bahda waxbarashadu ay qaadhanka ku soo biiriso $350,000 oo loo kala qaybiyay 200,000 oo jaamacadaha lagu qoray 100,000 oo dugsiyada gaarka ah lagu qoray iyo 50,000 oo lagu qoray dugsiyada guud ee bulshada ee ay wasaaraddu gacanta ku hayso waxa marka maanta kulanka lagu gorfeeyay qaabkii loo wajihi lahaa lacagta qaadhanka loogu soo xareyn lahaa waxa kamid ahaa horta waxa loo saaray guddi farsamo oo uu hogaaminayo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashadu inay hawsha hogaamiyaan waxa kale oo la soo saaray in arday kasta oo ardayda kamid ah 10,000 oo Soomaaliland oo qaadhanka ku soo daro oo dugsiyadu ay soo ururin doonaan xisaab bageed loo furayo qaadhanka waxa ka reeban oo aan laga qaadayn ardayda ay waalidkood suuqa Waaheen uu ganacsiga kaga gubtay dugsiyada miyiga ku yaala oo iyaguna xilli abaara ay ku jirto bulshadii ardaydu dhageyseen iyo ardayda baahiyaha gaarka qaba geesta kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxa uu fariin u diray mas'uuliyiin kala duwan oo uu tilmaamay in ay siyaasadeynayaan isla markaasina ay kala qaybinayaan bulshada u gurmanaysa suuqa Waaheen oo uu tilmaamay in maanta lagaga bixi karo wadajir iyadoo xilli adag lagu jiro oo abaara oo rabadaantii barakaysnayd aynu ku jirno suuqii Soomaaliland u weynaana uu gubtay oo Soomaaliland iyo dunida inta Soomaaliland danaysaaba ay ku hawlan yihiin sidii loogu hawlgeli lahaa sidii looga soo kaban lahaa dhibaatada dhacday maalin walba waxaynu aragnaa dad waxyaaba aan loo fadhiin oo xitaa wax laga xishooda baraha bulshada iyo wararka soo gelinaya qaar baa oranaya madaxdii qaranka qaar oranaya kaas iskhilaafsan 100 jeer baa lagu celiyo leeyahay cid iskhilaafsan ma jirtay dhinac baa loo wada duuban yahay qaar baad arkaysaa qabyaalad iyo naxri iyo waxaan loo fadhiin gelinaya marka waxaan leenahay aynu inteeda awoodda u leh inay ka qayb qaataan inta kalena ha u soo duceeyaan